waa markaliya muuqaalkan halkaani waxaan idinku soo gudbinayaa oo aad ka aragtaan maamo waayeele oo cuuriyaan ah iyo ehelkeeda oo halkaan u yimid inay kaba iibsadaan laakiin wax lacag ma haystaan taas ayaa waxay keentay inay ka laabtaan meeshii ay doonayeen inay kaba ka iibsadaan marka ninkan muuqaalka duubaya oo ah nin samafala ah oo dadka masaakiinta caawiya ayaa wuxuu doonayaa inuu caawiyo marka wuxuu leeyahay kaba miya raadinaysaan ayakana waxay u sheegayaan inay kaba raadinayaan laakiin aysan haysan wax lacaga marka wuxuu leeyahay waxba aysan dhibanin aniga ayaa idinka caawinaya arrintaas kabaha la eg maamada kaale u raadi mid ka mid ah gabdhihii la socday maamada ayaa waxay ku soo noqonaysaa carwada iyadoo markaan rajo weyn qabto inay hooyadeedu iibido kabo maadaama kabaha lacagteeda laga caawinayo ninka ayuu mahadcelinaysaa walaadaad baad ugu mahadsan tahay caawintaad naga caawiday kabaha kabihii kusayska ahaa ayay u soo qaadaysaa mid ka mid oo sambal ahaan ay u soo qaadaysaa kabacdi waxay u keenaysaa hooyadeed oo ay leedahay kabahan isku fiiri kabacdi kabihii markay isku fiiriso ay noqdaan sayskii leeka ayay waxay u doonaysaa inay kabihii ay u soo qaado lambarkii leeka mar kale baqaarka ay dib ugu soo noqotay sidii u soo qaado kabtii kale kabii oo baakad ku jira ayaa loo soo dhiibay lacagtiina waxaa bixiyay ninkii samafala ahaa kabacdi maamada ayaa waxay u mahadcelinaysaa ninkii ka caawiyay inuu kabaha uu iibiyo iyadoo weliba si aad ugu mahadcelinaysa mar kale ninka ayaa wuxuu doonayaa inuu ka farxiyo maamada isagoo dhahaya how lacagtan tiri lacagtii ayaa hadda tirinaysaa waxay leedahay waa 900 wuxuu leeyahay adiga ayaa iska leh way yaabta maamadii way faraxday macquul ayay la noqon weysay afka ayay qabsatay waxay leedahay mahadsanid waxay ugu mahadcelid ma taqaan waxay leedahay ilaahay ha ku farxad geliyo saa ay farxad geliday mid ka mid gabdhihi ayaa haddana waxay sheegeen dhibaato kale oo ay maamada haysata oo ay u baahan yihiin laga caawiyo marka lacagta ayuu weydiinayaa qiimaha ayay u sheegaysaa mar kale wuxuu soo saarayaa lacag isagoo dhaho maamadii weydiidee laakiin qof kale ayuu dhiibo garabkeeda taagan qofkii kale ayaa tirinaya lacagtii wuxuu sheegay qiimaha ay taa lacagta loo dhiibay wuxuu leeyahay iyadana adiga ayaa iska leh mar kale ayuu mahadcelinaysaa maamadii way wajigeed farxad weyn ay ka muuqato maanta lama qiyaasi karo maamadaas farxad ay dareemayso waxay ka soo tagtay gurigeeda iyadoo aad u murugaysan waxba aan haysan doonaysa in wax soo gadato laakiin waxay gurigeeda ku noqonaysaa iyadoo faraxsan lagana caawiyay wixii baahiya ay qabtay dhammaan reerka ayaa u mahadcelinaya samafalihii ka caawiyay arrintaas iyo koo dhahay aad baad ugu mahadsantahay caawadana caawiday ilaahay ku farxad geliyo waa muuqaal aad u cajiiba oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan